مثلا غزوة بدر markay dhacaysay xadiiskii saxiix muslimku wuxuu sheegayay xudayfa ibn al-yaman iyo abihi wada socda oo muhaajiriin soo socday quraysh qabatay markaas la yiraahdo xaga ku socotaan markaas ay yiraahdeen madiina yathrib markaas la yiraahdo kuma socotaan nabi maxamed ba ku socotaan yaani ciidankan aanu saynaa galeysaan kuma socono bay magaalada si galeynaa waxa lagu yiri heshiisna la gala heshiis bay la galeen heshiisku muxuu yahay nabi maxamed iyo ciidankiisa kaleey salaatu wasalaam inaydan soo helineen oo soo raacinin nimanka way isgaleynaaye labadiinaasi way sii deynayna si inaydan galaynin waa la galeen waa la sii daayay hadhow nabiga u yimaadana waxa yiraahdaa ilaahay rasuulkiisiyo nimanka quraysheed waa naqabteen heshiisna waxaanu ku soo galnay inaan dagaalka kala qayb galin maxaa tala ah ونبي محمد وقتي وبهنا عليه الصلاة والسلام لقد تربدنا صعب قالوا إنه وطه كن عيدنا حق كلا جوجان وما أنتوا كدوا عيني نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وهدات كوحدة يرهلاك الدنيا تدب له جوع عبد مايو كوحدة سيديها لك سنتو إله الدنيا تدب له جوع عبد مايو دقال أنا كنت لقى لمبا قبصة وصحابة دين بدنا يشوكت مدينة وأنا صار راعين هذا نيسقوا وحاسو مش مسألة النبي جاي ستاي كاتا هاي أيوه حكيري نفي لهم عهدهم ونستعين الله بهم iyagana balankooda anu waafinaya dagaalkana ilaahay baan u kaalmaysanaya iska taga buu ku yiri xudayfa dagaal ma galin yaa bihi toona goob la isku hayo yani waxaan uga jeedaa saxaabadu waxay noolaayeen nabi maxamed oo yuhuud heshiis la galaya waxay noolaayeen nabi maxamed oo quraysh oo mushrikiin heshiis la galaya waxay noolaayeen nabi maxamed oo duulimaad ku jiro dagaal ku jiro dagaalamaya waxay nabiga la noolaayeen alayhi salaatu wasalaam وقت دجال وقت نبتجلية وقت هشيش وقت لقى حق بدأ وحولبا سيدا دراد وحول النبي صلى عليه الصلاة والسلام قادة وحلقة الماما هو جامي يال مركو النبي وجريودي عليه الصلاة والسلام إلى هي أفصدي أبي بكر با مسلمين تعالى كأو قاضي عمر با كذب قاضي عثمان با كذب قاضي على كذب قاضي رجع هابا كذب قاضي قارده الدنيا دورنا بيفرتين قادة بيهايه maantase inagu waxaan joognaa casri islaamka nidaamka dawladnimo iyo nololeed oo dhan laga saaray oo la saaray ruufafka masaajidda iyo maktabadaha isagoo qoran baa waxa la dhigay halkan masaajidka gudihiisa iyo maktabaduhu kitaabka yaala waxa aan soo saaraa jaamacadda ardayga gala مقاعد الجامعات كصوبها أما مساجد وحكودكتا مساجد كسوق الإنشابية وحصوبها أرضي ثيوري صوبرتي نظريات صوبرتي لكن نلاش واقعي عن وحبك أقانين ونظريات أكاديمية وثيوري علمية ما ثيوري فضل وثيوري علمية وصوبرتي لكن نلاش تجربكم عليه ما تجابين ثيوري كان مو gaadhin xad waxyaabo badan oo u baahnaa inuu kala saaro tusaalaan idin siinaya theory iyo practical ka aan sheegay maxaa u dhaxeeya labadan eray afkaaleedka aan sheegay maxaa u dhaxeeya مثلا dhalinyarada inta dambe waxa taqaaniin ma soo qabanaya kubadda cagta la ciyaaro team kubadda cageed baynu dhibayno sameeynaa dabeetana professor ku takhasusay kubadda cagta inuu keenay coach tababare caalamka ka ugu sareeyana waa keenay professor ka ugu sareeya kubaddana waa keenay 20 inaan caafimaad qabo feedho waaweyn meel baynu ku xaraynaa dabeetana waa u akhrina aloo dhiga baynu dhig 2 sanadood bay ku akhrinayeen marna garoonka geeyaan oo liyaaqa badaniga iyo digdigtan la baraayo in jirka la jajabiyo iyo si laba rogi lahaa marna kubadda iyo qaabka weerarka loo galay iyo qaabka difaaca loo galay waa kan boo qodhay coachki tiimka la ciyaarayna haday tiimka qaacidadka caynkaas ku ciyaaray yihiin raasul xarbaheenu waa mid afar dhexe afar dambe laba xagana waka wixii uu sharxay wuxuu dhigay tiiriga kubadda lagu ciyaaro oo dhan nimankaasi markay khubaro ku noqdeen bahasha liyaaqa badaniga barteen wax walba barteen ayayna waxaan nidhi kaalay hadaba waxa la ciyaaraysaan oo doorkan leen waxaan nidhi kaalay hadaba waxa la ciyaaraysaan oo doorkan leedin ku tijaabinaya ina la ciyaartaan Brazil imisaad rajaynaysaa inay goolal ka dhaliyaan يعني ninka kani theory buu sida garoonku soo galay imisa theory-gu maskaxdiisa ku xaadiraya markuu ninka ku soo baxo
ma yatuunal baad ka saartaa maxaad kala imisuu ka fikri karayaa baad u malaynaysaa mise intuu fikirayaa kubadda laga qaadaya yani kan laakiin theory-ga badan loo akhrinay practical loo soo train gareeyay ee tiimanka lagu soo train gareeyay la soo waday qofka iyo qofkan theory-ga loo dhigay marka nolosha dhabta la isugu yimaado iyama wixiisu dhab yihiin yani ninna wuxuu bartay wax practical ah si practical loo train gareeyay ninna wuxuu hayaa maxay theory buu haystaa nadariyaad buu hayaa tamacneedu waxa weeyaan aqoonta lagu qaato madaarista cilmiga ama jaamacaadka ama masaajidda ama waxaas oo dhami waa buxuus nadariya laakiin marka ay timaado in si practical loo kala saaro waxyaabo badan الولاء والبراء مركو عقيدية هي بين التسامح والتعايش والمعاملات والمساومات السياسية وها مركا للرباين لك لصاره مركا للرباين لك لصاره وحيابا بدن ونولشة أيوب باهن تهي وكلا قدي سنتي وحلنا قفكو ثيري حتى هدو استيعابه وسيدو براكتيكالي مركو فولين أيوه وحبدا مثلا حديث بريدة صحيح مسلم كي الله saxaabiga si burayda wuxuu leeyahay nabigu kaleey salaatu wasalaam markuu ciidan dirayo wuxuu fari jiray inuu nafiisana ilaahay uga cabsado subhanahu wa ta'ala muslimiintana waxa ula dhaqmo gaalada sidoo la dhaqmo waxa la farayay xadiiska waxa kamid ah uu nabigu ku yiri kaleey salaatu wasalaam amiirka uu dirayo idha hasarta ahla hisnin dul qalcad ama dhufays ku jira hadaad ka qabato maxay go'doomiso oo faaraduka an tunzilahum ala hukmi allah way ku yiraahdaan war waxaan u soo dhaadhacaynaa ilaahay xukumkiisa waa isdhiibaynaa laakiin ilaahay xukumkiisa aanu rabnaa inaad ugu xukunto fala tunzilhum ala hukmi allah ibn abu kuyri ilaahay xukumkiisa ha u soo dhaadhicina ha ka aqbalin hada waxa laga aqbalaya oo saxaabigu nabigu dirayo dabeetana wuxuu leeyahay haday ku yiraahdaan ilaahay xukumkiisa baanu aqbalaynaa kaas hayeel ibn abu kuyri oo maxay aqbal walakin anzilhum ala hukmik ibn abu kuyri waxa tiraahdaa waxaan idinku soo dhaadhicinayaa xukumkayga oo waayo nabigu wuxuu yiri faynaka la tadri atusibu hukm allah fihi mamla adigu garan maysid inaad haleeli doonto ilaahay xukumkiisa inaad kuwan ku haleeli doonto iyo inaad gafi doonto maxaa loo jeedaa adigu bashar baad oo waad